isbahaysiga BRICS ee u muuqda mid ka dhan ah saameynta Mareykanka ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay si lama filaan ah u aamusay xilli madaxweynaha South Africa Cyril Ramaphosa uu wajahay ceeb siyaasadeed oo dunida ka yaabisay kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. kulanka oo ahaa mid foolka fool ah oo ka dhacay aqalka cad ayaa markii hore loo saadaaliyay inuu noqon doono fursad lagu xoojiyo xiriirka ganacsi iyo iskaashi dhaqaale, balse arrimuhu waxay isu rogeen fadeexad siyaasadeed kadib markii Trump uu Ramaphosa ku weeraray eedeymo culus oo ku saabsan xadgudubyo la sheegay in lagu hayo beeraleyda caddaanka ah ee Koonfur Afrika. Trump waxa uu soo bandhigay muuqaalo muujinaya siyaasiyiin iyo taageerayaal xag jir ah oo ku baaqaya dil iyo dabargoyn loo geysto dadka caddaanka ah ee reer Koonfur Afrika. Isagoo aad u cadhooday, Trump wuxuu xusay in xisbiga EFF ee uu hogaamiyo Julius Malema uu si cad ugu dhiirigelinayo dadweynaha in ay ku baaqaan dil booriga, dil beeraleyda, iyadoo hadalladaas lagaga dhawaaqayo fagaarayaal dadku buuxaan. Waxay ahayd muuqaal si weyn u gilgilay saaxada caalamka. Intaa waxaa si dheer, Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu siiyay magangalyo 49 Koonfur Afrikaan caddaan ah kuwaasoo ka cararay dalka iyagoo ka cabsi qaba tacadiyo iyo hanjabaado. Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa wuxuu ku tilmaamay dadkan fulayaal aan xaq u lahayn qaxootinimo, taasoo sii hurisay muranka. Marka laga yimaado murankaasi adag, waxaa si aad loola yaabo ahayd sida xulafada Koonfur Afrika ee BRICS, kuwaasoo ay ku jiraan Ruushka, Shiinaha, Brazil iyo Hindiya, aysan midna u difaacin Koonfur Afrika, mana aysan soo saarin wax bayaan taageero ah. Aamusnaantaasi waxay su'aal gelisay wadajirka iyo kalsoonida dhex taala xubnaha isbahaysigan. Inkasta oo warbaahinta dowladaha Iiraan iyo Shiinaha ay isku dayeen in ay difaacaan Koonfur Afrika iyagoo sheegaya in cabashooyinka Trump yihiin kuwo aan sal lahayn, haddana aamusnaanta guud ee BRICS waxa ay muujisay in midnimada ururkaasi ay tahay mid liidata marka ay timaado arrimo muran dhalinaya. khilaafaad hore oo ka dhex jiray BRICS sida dagaalkii u dhaxeeyay Hindiya iyo Shiinaha iyo isfahan la'aanta Koonfur Afrika iyo wadamo ay ka mid yihiin Masar iyo Ethiopia ayaa mar horeba shaki geliyay midnimada isbahaysigan. Markan oo ay Koonfur Afrika wajahday eedeyn weyn oo ka timid Mareykanka, waxay ahayd fursad ay xulafada BRICS isku muujin karaan, balse waxa la arkay ayaa noqday aamusnaan curyaan ah. Waxay arrintani si weyn hoos ugu dhigtay sumcaddii Koonfur Afrika iyo kalsoonidii laga qabay BRICS inay noqon karaan cod midaysan oo u istaaga dalalka Korea ee Global South, kuwaasoo ku taamaya in ay abuuraan nidaam caalami ah oo aan Mareykanku u ahayn tiir dhexaad. Shirka xiga ee BRICS ayaa lagu wadaa inuu ka dhaco magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil bisha July ee soo socota. Wasiirka arrimaha dibadda ee Brazil ayaa sheegay in shirkaasi lagu gaari doono go'aano muhiim ah oo kor loogu qaadayo horumarka, iskaashiga iyo nolosha dadka ku nool dalka xubnaha ka ah BRICS. laakiin su'aashu waxa ay tahay, ma jiri doontaa isbahaysi dhab ah mise BRICS wuxuu noqon doonaa magacuyaal aan waxba qaban marka xulafadiisa ay cadaadis la kulmaan?